بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a bank loan. Bank loan waxaa lagu qeexi karaa lacag la amaahiyey shakhsi ama ganacsi si ay baahidooda ugu daboolaan, waxaana lagu amaahiyaa deynta dulsaar interest rate, waxaana laga rabaa in qofka ama shirkadda deynta qaadanaysa inay lacagta ku bixiyaan muddada lagu cayimay heshiiska deynta. badina deynta waa mid sugan. haddaba deynbixiyaasha waxa ay u kala saaraan sugnaanta ama soo laabashada deynta 3 nuuc, kuwa oo kala ah: 1 waa secured loan, waana deyn sugan, taa oo micnaheedu yahay in qofka qaadanaya deynta laga qaadayo hanti rahan ah sida dhul oo kale, waxaana loo adeegsanayaa in la gado hantida haddii uu deyn qaataha bixin waayo lacagta lagu leeyahay. sababta ayaana ka dhigaysa deyntan mid sugan oo mar waliba bangiga waxa uu dib u helayaa lacagtiisii. aan ka hadalno qaybta labaad oo ah unsecured loan, oo cagsi ku ah midda koowaad, waana deyn la siinayo qofka iyada oo aanan laga qaadin wax rahan ah, waayo bangiga waxa uu deynta ku bixinayaa sumcadda wanaagsan uu qofka leeyahay. qofkaana waxaa laga rajaynayaa inuu deynta ku bixin doono waqtigii lagu heshiiyey. waa deyn lagu bixiyey sumcad wanaag, oo haddii uu qofkii awoodi waayo wax hanti ah ama rahan ah uu bangigu gadi karo ma jiraan si uu uga soo kabsado deyntii ka dhuntay. sababtaa ayaana loo dhahaa waa deyn aanan sugnayn. halka qaybta saddexaad loo yaqaano partially secured loan, nuucan waxa uu kulansaday qaybta koowaad iyo qaybta labaad. taa micnaheeda waa in qofka deynta qaadanaya laga qaaday hanti rahan ah, balse hantida qiimaheeda waxa ay ka hooseysaa deynta la siiyey qofka. oo haddii uu macmiilku bixin waayo deynta, bangiga waxa uu helayaa qayb ka tirsan halka uu weynayo qaybtii kale. sababtaa aawadeed ayay qaybtan u kulansatay in qayb ka tirsan deynta ay tahay mid sugan, halka qaybta kalena ay tahay mid aanan sugnayn. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda financial institutions ka dhagayso lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.